السلام عليكم. سو دواada markay dadku soo yara bataan baan bilaabina insha allah haddii alla yidhaahdo. soo dhawaada kulligiin waad soo dhaweynayaa. ka raali ahaada xoogaa yar oo aan inka soo daahay waqtigaa idiin qabtay awgeed. waxaan rabaa insha allahu tacaala saad ciwaanka ku aragtaanba wax yar oo kooban inaan ka iraahdo qeybta koowaad ee odaygan oo beri dhexdaas xiirnaan jiray sidii wax isku bedeleen. xaqiiqatan si lama filaan ayay u dhaceen. marka qeybta koowaad barnaamijkan waxaan kusoo qaadan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo 4 maado oo muhiim ah inta aanan wax kale u gudbinin. codkayga si fiican baa maqashaan baan rajeynaya insha allahu tacaala. sidaad ku aragtaan descriptionka ama meesha ciwaanka titleka waxaa ku qoran sirta bidaarta qeybtii koowaad, laakiin waxaa kaloo ku hoos qoran eraya af ingiriisa sida ereyga collagen, horsetail, zinc and biotin. marka waxaan rabaa 4taas waxyaalood marka hore qeybtan koowaad inaan sharaxno, dabadeedna sirta oo halkaan ah inaan insha allahu tacaala idinla wadaago. waxaan hadda ka hor galay dukaan. okay good, dukaan ayaan galay. dukaankaas gabar joogta ayaanu cabaar isku sheekaysanayoo dukaamada lagu gado waxyaalaha caafimaadka iyo health productiga waxay yidhaahdaan. dabeedna waxaan ku eri naabala ku aragtay welina qalbiga waa ka yaraa, timihiina waa tageena maxaa tala haysaa baan ku eri. mugta waa markii u horreysay oo aan la tashtay haweeney aan xaaska ahayn. waxaa idiin sheegaya arrintaas inay shaqaysay. arrintaas waa shaqaysay. xaaska inaan la tashtayna waa muhiim. allahu mustacaan calaa maa tasifuun. so waxaan rabaa marka hore collagen waxa ay tahay inaan insha allahu tacaala idinla wadaago. collagen waxa weeye waa maado u fiican skiinkaaga, jirkaaga iyo timahaaga labadaba. waana waxa isku haya jirkaaga oo hilibka iyo lafaha isku haya weeye. so collagen baa la yidhahdaa. qeyb weyn ayay ka qaadataa timahaagu inay dib u soo baxaan. so collagen baa la yidhahdaa. keligeed ayaad qaadan kartaa maalin walba xabad qura. there you go, collagen. dadka aan garanaynin sida collagen loo qoro waxaad ka arki doontaan insha allahu tacaala meesha hoose ee qoraalkan meesha u qoraysaad ka arkitaan collagen baa ku qoran. horsetail, dadka qaarkood horsetail maadada labaad weedaan u gudubna. horsetail ma ahan saynta fardaha, ma ahan. waa geed baxa weeye oo dabiici ah. geedkaas waxaa lagu daaweeyaa waxyaalo fara badan ayuu daawo ka yahay. waxaana ka mid ah in uu dib u soo celiyo inay timahaagu u soo baxaan si dabiici ah. kimika, daawo, sun kama hadlayaan. waxaas si dabiici inay u soo baxaan ayuu ka qayb qaataa. waxaana la yidhahdaa horsetail. maadada saddexaad oon jeclaan u gudbo waxaa la yidhaahdaa zinc. zinkigu haddaba waxa uu ka qayb qaataa waxyaalo fara badan, laakiin annaga hadda waxa naga quseeya waxay tahay qeybta timaha. waxa uuna soo celiyaa skiinkaaga sidii ilaahay u talagalay ama maqaarkaaga, iyo weliba timahaagu inay dib u soo baxaan. waana maado dabiici ah. allahu mustacaan calaa maa tasifuun. so saddexdaas waxay waa kaasa. kan ugu dambeeya waxaa weeye biotin. so zinc saas u egyahay. there you go, zinc baa la yidhaahdaa. kan u dambeeya waxaa weeye biotin. biotin waa powerful stuff ah. waxa uuna qeyb ka qaataa timahaagu inay soo baxaan, cidiyahaaga inay maaragtay ay fiicnaadaan oo caafimaadkooda uu fiican yahay, iyo weliba waxuu regulate gareeyaa amase uu ka shaqeeyaa in
blood sugarkaaga sonkorta jirkaaga ee dhiigaaga ku dhex jirta inuu dejiyo aysan xad dhaaf noqonin ama aysan waalanin oo dabadeedna maaragtay sida dadka qaarkood 40 daqiiqad walba islahay maxaa isku dhacay markii dhalinyaradu shaaha sonkorta badan ka dhargaan so afartaas waxyaalood oo muhiimka ah ayaa loo isticmaalaa inay timahaagu soo baxaan clinically proven dhakhaatiirta ama dadka saynistiyaasha culummada sayniska ayaa cadeeyay in ay waxaanu shaqeynayaan kulligoodna waxay ku salka ku hayaan arrimahaas dabiiciga ah so waxay halkaan aniga ever bay ahayd Allahu musta'aanu calaamaat sifoon ever bay ahayd markaan gabadhan la sheekaystay ma aanan rajaynaynin intay daawayra isiiso inuu guudku geedkaas ilaa kala sarigii barigii aan 20 sano jiray haddaan almost 45 sano ku dhawahay ilaahay maajis marka isma lahayn guudka ku soo baxay sidii wiil yar oo 20 jir oo geel la joogo raala hada laakiin wuxuun baan islahaa markaad odayaasha aad isku da'da tihiin aad dhex gashid yaan laga dareemin rag si fiican bay fahmayaan inaan laga dareemin odayaasha markaad la joogto isla egtihiin ama ka waaweyn ama ka yar yar oo bidaartu ay cidlada ka heshay iyo qaxootinimada isugu darsantay inaan la iga dareemin so that was the goal so waxaan isri waxyaalo badan ma aadan try gareynin turkiga ma aadan tiginin meelaha timaha lagu sameeyo ma aadan tiginin maxaad samaysaa waxaan go'aansaday in aan bal arrintan Janis iyo Linuro soo dhaweynay saaxiib in aan bal arrintan Janis iyo ayaan go'aansaday dabadeedna waxay isoo siisay kaniinigan wuxuu ka kooban yahay 9 xabadood so kaawan ka saaray maalin walba xabad baad qaadanaysaa dhagdhe marka labaad marka iga dhamaaday kaaskana haddana xabad qaatay saddexda xabo waa ka saaray kuwaana wali waxba ku jira isku soo koobo muddo 45 cisho kadib ah ninkii odayga ahaa wuxuu arkay in isbedel tima ay soo socdaan dabadeedna waxaan ogaaday maadadan inay shaqeynayso walina ma dhamaynin oo sidaad arkaysaan raali ahaado sidaad arkaysaan wali waxbaa ka haray intaasaa iiga hadhay maalintii hal xabo oo qura ayaa qaadanaysa daawadan marka waxa kale oo ku jira waxyaalo kale oo dabiici ah ayaa ku jira oo fara badan waana food supplement waxa la yiraahdo waa xabad kaniin oo maalintii aad qaadanaysid inta aadan qaadanin waxaan sameeyay marka si aan naftayda u badbaadsho ummadana wax qalad aan ugu soo bandhiginin waxaan eegay waxa laga sameeyay in ay marka koobaad diinta xaraan ay ku yihiin hilib doofaar dhiig doofaar lacaan doofaar xayr doofaar waxyaalaha la midka alcohol iyo waxyaalaha la midka oo annaga diinteenu naga mamnuucday markaas kadib arrinta markaan sidaas sameeyay waxaan ogaaday side effect inay leedahay ama dhibaato inay keeni karto dhibaatadeeda waxa ka mid ah in ay keeni karto misaal ahaan xasaasiyad jirku inuu ku cuncuno baa ka mid ah waxa suurtagal ah marka koobaad jirkaagu inuusan la qabsanin oo calooshu ay ku socoto si aysan marka hore ku socon jirinin ilaahay aniga labadaa waxba iima keeninin labadaas ilaahay uu iga badbaashay wixii ugu weyn aan ku arkana waxay ahaayeen labada noocna anigu midna maanan arkin marka adigu jirkaaga adaa yaqaana qof walbana kiisa gooni buu leeyahay marka anigu labadaas waxyaalood midna maanan arkin calool xanuunna maanan arkin dabadeedna markaan muddo qaatay isbeddelkaas ayaan arkay timihii marka halkaan way ka soo baxeen xoogaa yar halkaan waxaan moodaa inay soo madoobaanayaan oo xoog soo yeelanayaan laakiin weli waa khafiif waxay u yihiin awooddoodu waa daciif laakiin maalin walba way soo baxayaan waxaana ka joojiyay jaritaankii badnaa si aan fursad u siiyo marka slowly wixii waxaan arkay inay soo baxayaan markaas waxaan go'aansaday inaan idinla wadaago wixii kuu shaqeeya walaalkaa la wadaag waxaan idin hayaa maadooyin kale oo aan jeclayn halkaan kugu soo bandhigo oo markaas aan ogahay inay shaqeynayaan ama aniga ii shaqeeyay haddii ay jiraan waxyaalo aad jeceshihiin inaan tijaabino noos ii soo dira magacooda ii soo sheega waa akhrinaynaa waa ogaanaynaa waa tijaabinaynaa dabadeedna dadka ayaan la wadaagaynaa si bilaash ah oo maaragtay walaaltinimo ah
so daawadii kaniinigii wuu shaqaynayaa hurdala'aanku iguma ridinin dhibaato kale iima keeninin asaga oo waxaa jira nooc kale ah oo dumarka ay isticmaalaan laftigiisu kan hadda waa kii ragga dumarka laftigooda waxaa gasha bidaar waxaa la dhahaa bidaartaas alabiisha ayaa la yidhaahdaa haddaan idinla kaftamo hooyooyinka iyo gabdhaha soomaalida sharaftii kalaamada lahow bidaarta ragga gasha waa la yaqaanaa laakiin tan idinka idin gasha waa mid xaasidad ah marka there you go marka daawo raadsada oo isdabara insha allahu tacaala marka aniga way ii shaqaysay turkigana ma teginin heer blanch lama samaynin marka halkan haddaa hadda eegtid xoogaa yara waa ka khafiif laakiin markaad eegtid sawirro hore oo aan galay aad bay tan uga duwanay tii hore maalintii horeysana waa idiin soo bandhigay haddaa bejkigan dib ugu noqotaan waxaa arkaysaa before and after sawirro ah oo halkaanoo ilaahay xaaladeeda uu og yahay marka slowly way soo baxayaan laakiin halkan dambe haddaad tagtaan hadda raggana gadaal lagama soo maro hadda xilli colaadeed baa lagu jiraa haddaa halkan dambe intaa martid wax aadan ku farxin aad aragtid waa adig iyo qushigaaga laakiin haddaan isa soo hor istaagno odayaasha waa la jaan qaadi karaa maxamed cabdi we love you too brother guuleyso marka ikhyaaray arrintu sidaas weeyaan qaybtaas marka dadka hadda dib nooga soo biiray fadlan waxa aad si fiican u eegtaan ama u raadisaan oo faa'iidooyin fara badan bini'aadanka u leh ninkaa odayga ah magacana kor baan kugu soo qoray biotin kan waa maxaa la lahaa 5000 milligrams powerful way dhibaato kuma keenayo zinc waa 25 faa'iido fara badan buuna ku leeyahay maalin walbana xabad cuntid hair follicle ayuu ku hagaajinayaa maxaa la yidhahdaa and that's collagen collagenku faa'iidadeeda lama soo koobi karo waxaanoo dhan waxay ku jiraan kaniiniyadan aan idiin sheegay oo aan rabay insha allahu tacaala insha allahu tacaala inaan idinla wadaago waxa ay ku saabsan yihiin marka waxaad eegtaa markaad tagtid healthy food storeka markaad tagtid waxaa eegtaa waxaa ku tiraahdaa waxaan u baahanahay collagen marka waxay ku timaadaa mar inta badan iyadoo kaniiniya ayaa la helaa collagen baan u baahanahay baa leedahay marka collagenku wuxuu fiican yahay kaana caawinaya black clothkaaga inuu hagaajiyo iyo skinkaaga ayuu si fiican kaaga caawinaya waana hair product timahaagana inay dib usoo baxaan ayay hagaajinaysaa sidoo kale waxaad aad iyo aad u fiirisaa ood ka warqabto haddii ilaaha yidhaahdo hostel markaad google garaynaysa waa one word oo isku dhegan waay hal xaraf oo kale weeyaan hostel baa la yidhahdaa hostel waa plant ama waa geed baxa weeyaan oo dabiici ah geedkaas ayaa isticmaalaysaa waxa uuna sahlayaa in maaragtay ay timahaagu dib usoo baxaan haddii ilaaha yidhaahdo maadada kale oo saddexaad oo muhiimka aanu soo marnay daay waxay ahayd maadada lahahda zinc wax la heli kara maaha waa muhiim waxaan oo dhan waxay joogaan wax yar oo raqiisa maybe kan waxaa laga yaabaa inaad ku heshid 5 pounds 5 guinea so meeshaad joogta aanu ma garanayo maraykanka haddaad joogto waxaad dhihi kartaa waa $8 for example kan waa sidoo kale laakiin ninka odayga oo kaniiniga ah ninkaasu nin sahlan ma ahan 9 guinea weeye 9 pound ama guinea weeyaan so 100 iyo something ma noqonaya qolyaha xawaalada idin sheegaya ayaa yaqaana raydka meeshuu marayo so zinc inaad isticmaashid maalintii xabad qaadatid skinkaaga cidiyahaaga ayuu hagaajinayaa maxaa la yidhaahdaa sidoo kale biotin timahaaga ayuu xoog u yeelaya hadda waxaa idin sheegay inay khafiif yihiin laakiin biotinku wuxuu kaa caawinaya inay timahaagu adkaadaan oo ay xoogsadaan ayuu kaa caawinaya haddii la yidhaahdo and it regulates your blood sugar so intaas waxay ahayd qaybtii koowaad ee barnaamijkan aan idinkugu talagalay inaan idinla qaybsado sidaa inka ballan qaaday horey ayaan u sheegay anigu turkiga ma teginin meel tima lagu beera ma teginin meel tima lagu xiira ma teginin waxaan qaatay oo keliya daawadaas wayna ii shaqaysa aniga waxaan insha allahu tacaala mar kale aan waqti helaano idiin soo sheegi doona xilli hore idiin soo bandhigi doonaa xubinta ragga Soomaaliyeed ama dunida jooga oo dhan kala reebtay sida loo xanibo xubintaas waxa weeye waa caloosha wiil walba 6 bag buu rabaa 6 bag nin aan lahayn rag iyo dumarba waa ka cararayaan baa leeyahay marka anigu 6 bag ma raadinaynin laakiin 3 bilood ayaan waxaan fadhiyay guriga oo bilaa shaqo la ahaa lockdownkii
taasina waxay keentay odaygii inuu iska ballaadho marka haddii 3 bilood oo lasoo dhaafay aad yara ballaaratay aadna doonaysid intaan lockdownka la gelin ka hor sidaad ahaan jirtay inaad ku noqotid maalmaha soo socda waxaan idiin soo bandhigayaa arrin yar ah oo cajaa'ib ah oo aan isticmaalay oo shaqaynaysa oo clinically proven ah aad iyo aad ba u mahadsantihiin waxaad iga rajaynaysaan kaniinigan magaciisa iyo maxaa la yidhaahdaa waxa uu yahay iyo meesha laga helo ayaan jeclay inaad heshaan inaad ogaataan so give me 1 second I'm gonna grab something right taasu qaybtii koowaad bay ahayd oo waxa kaniiniga ku jiray aan idiin sheegay gabadhan dhalinyarada markaanu kulannay ayay waxay igu tiri waxaan ku iri horta Janice maxaan anigu leeyahay inay tima ii soo baxaan ilaan oday Soomaaliyeed oo da' ah oo aabba ah oo xaraarad gooyay oo suuqa shukaansiga ka baxay 1995tii way adag tahay si suuqa loogu soo celiyo tima ugu soo baxaan marka waxaan ku iri Janice-ka aan leeyahay waa maxay dabeedna waxay igu tiri dhakada i tus dhakadu waxay madaxa i tus marka way iga yara gaabnaydo saasaan eriyo dabeedna waxaan ka baqaynaa tiraahda innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxay tiri saaxiib Janice baa leedahay sama garanin Janice ayaad leedahay baashaan taraagaray way shaqaynaysaa marka waxaan rabaa idinkuna inaad Janice-kaas taraagaraysaan hadduu idin shaqeeyo alxamdulillah hadduu idin shaqeyn waa gooni weeye marka aniga wixii ii shaqeeyay kaliya baan ka hadlayaa aniga adigu waa kala jir duwanahay DNA-geena waa different inay kuu shaqeyn weydaa laga yaabaa laakiin try gare haddii ilaahay yidhaahdo so waxaa la yidhahdaa hair volume hair growth and volume ninka waxaana ka helaysaa dukaanka la yidhaahdo dukaamada caafimaadka cuntada caafimaadka oo dhan iibiya ayaa iibiya let's say waxaad degan tahay anigu waxaan deganahay galbeedka magaalada London liibaan nuur oo kale inta uga jeeda wuxuu degan yahay waqooyiga magaalada London so haddaad Camden High Street tagtid oo kale Holland Parks baa ku yaala ama waxaa ku yaala as nature intended waa dukaamo magacyadooda waxaanu waa tegaysaa dabeedna waxaa leedahay waxaan u baahanahay this product magaceeda waxaan u rabaa inaad aragtaan hadhowtiin oo iminan tusanin so daawadaas ama kaniinigaas ayaad weydiisanaysaa hair volume hair growth and volume baa la yidhahdaa hostile acid maxaa la yidhahdaa biotin waxaa kaloo ku jira waxaa la yidhahdaa maadada la yidhahda copper oo aad ogtihiin la-aanteed wax badan inaysan adduunka shaqaynaynin way idin shaqaynaysaa way ii shaqaysa aniga hadday idinka idin shaqayso waa kaas laakiin waxaan kuu sheegayaa hadday kuu shaqayso waxaad dareemaysaa maaragtay inay timi dib kugu soo baxayaan fadlan hana isku dayin maanta inaad samaysid oo berita ay kuu soo baxaan sidaa ujeedaan inta waxa ku qoran 9 kaniini weeyaan anigu ilaa 45 xabba ayaan qaatay macnaheedu waxaa 45 maalmood waxaan sameynayay weeye adiguna try gare aan sii wax kaaga soo baxa ayadoo waxaa jirta ragga tan waa tii ragga weeyaan ayadoo dumar ayaa jirta soo hadday dumar aad tahay timi ay kaa dhaceen so you can buy it haddaan nin tahay try gare waxaad samayn kartaa nin saaxiibkaaga oo dalkii hooyo jooga oo aan daawadan heli karinin hadiyad ugu dir waxaad tiraahdaa niyow dee waa ku kaa hadiyad ahaan ugu dir insha allahu tacaala saaxiibkaa ka farxi saaxiibadaa ka farxi intaas ayaan doonaya inaan kusoo gabagabeeyo wixii macluumaad aan hayo waa in siiyey oo ku saabsanaa bidaarta marka ragga dhalinyarada ah oo walwalka iyo niyad jabku ay ku dhacdayo ha niyad jabinina xal baa jira mar dambe haddaan arko wiil Soomaaliyeed ama oday Soomaaliyeed oo laamiga markuu marayo gabdho qurux badan ay ka soo horbaxaan gurdoon uu yahay halka madaxa saaraya sidii qof yaaban kooban ka siinaya u sheega get biotin xaragood suuqana iska celi ama sintiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guuleysta saaxiibadiina la wadaaga thank you waa idin mahadcelinaya daawashadiina karaamadiina walaaltinimadiina iyo sharaftiinaba la-aantiin abaar waaye no salaamu calaykum